بوبو isagu ah nin u dhashay wadanka Netherlands isla markaana luqadan ku hadlayay waa luqada afka Soomaaliga 12 sanadood ayaa waxaan kula kulmay magaalada Hague ee wadanka Netherlands waxana Bob aan kala sheekaystay waxa ku dhaliyay luqadan afka Soomaaliga inuu barto iyo siyaabihii ay u soo martay luqadan barashadeeda intii uu ku guda jiray Bobna waxa uu ii sheegay in luqadani ay ku dhalatay inuu barto kadib markii uu kulan la yeeshay dhalinyaradii ugu horeysay ee dalkan soo gasha maanta uu 12 sanadood luqada afka Soomaaliga Bob uu ku hadlo oo aan kula kulmay magaalada Hague ee wadanka Netherlands ayaa waxaan weydiiyay bal inuu sharaxaad ka bixiyo intii luqadan uu baranayay waxyaabihii ugu adkaa ee luqada afka Soomaaliga uu kala kulmo waxay ugu adkeed ku dhawaaqida ereyada moogtahay sida quruux iyo lulubo oo kale iyo word haye kelmadahaas oo kale moogtahay nidaam ay ba ku jirtaayo a iyo qa iyo ha moogtahay way ugu cusbataas laakiin in leeyli bas may moogtay macnaa wan aliyay marka ka bacdi waan keenay moogsoontahay marka hadda luqada Soomaaliga laga hadlo waxa inta badan la sheegaa inay tahay luqad aad u adag sida loo barto xitaa u balaaran moogsoontahay bal adigu ka waraysi hadaan ku yiraahdo agta wax ka day ama isa sii day ama baalkii in dhabarkaaga tus ama cidibta ku dhufo wasla meeshi moogsoontahay hadana hadaan ku yiraahdo gurigeyga jooga aqalkeyga jooga minikeyga in hoygeyga hadana dad qaarkood waxay yiraahdaan xaafadeydan jooga moogsoontahay marka af Soomaali ma badhamaanis waa bad oo kale hadda waa marki moogtahay hadda maalu jiibma واساسا لوي وتهدي الصوماليغو وبدن yahay Bobo imika waxaad sheegaysaa inaad Soomaaliga heer aad joogtay inaad wax u turjumi karto dadka Soomaaliguna wuxuu leeyahay may iyo maxaa tiri hadii matala ma imika uu ku yimaado mid may ku hadlaya waana af Soomaali kaas miyaad u turjumi kartaa waxa ku oranay dawga ma goro daw haye wata yani hadalka ma qaam wata ma maygina waad baratay waxba ka taqaanaa mise intaasay kaaga egtahay kelmadda kaliya ka barat dawga ma goro daw haye ريرو مايكويد فضو سوي اي واضح اكيد هني aad baad Soomaaliga u dhaxgashay صح luqada Soomaaliga inta badan waxa tarankeedu uu ka yimaada dhinaca gabayada iyo mahmaayada waxana taasi ay gogasho u xadaa qof kasta oo raba inuu barto luqada afka Soomaaliga hadii uu wax badan ka ogaado mahmaayada iyo gabayada Soomaaliya in ay u sahli karto inuu wax badan uu kaga barto luqada afka Soomaaliga ee hodanka ah hadaba Bobo isagu ah nin u dhashay wadanka Netherlands bal muxuu mahmaayada Soomaaliyeed uu ka yaqaana ama uu ka fahmi kara nin suuqsiya waagar suuqgalsiya waata ama cadowgaaga aan ma alsiisa waata ama in ni weyn tag lama yiraahdo wuxuu ku tagaa la tusa waata hashiro ma kale oo la yiraahdo naago waxa u daran ama tag ama joog waata niman waxa u daran ma lagu tebin waata labo qaawan isma qaado waata فينوس لابو قوم وظيفيس هولديس بو بدلay in ma hayo badan oo Soomaali ah anagana waa qabnaa moogta oo yar bedelan wata maxaa kamid ah maahmaayada Hollandeeska iyo Soomaaliga luqadooda aad isugu dhow god sir ah haqoodi u dhici doonti moogid wata gacmood jir bay wax ku gooyaan wata maxay af Hollandeeskuna ku noqonaya Hollandees ahaan vele handen maken lichtwerk wata iyo kii kale waxa weeyaan wie in kou gaat voor een ander wata valt er zelf in wata kule waa badan yihiin in kule adaa yaqaan waxaad sheegtaan kulama garanay waa tahay hadaadii ammaantay hadii kaleba maahmaayadii inoo sii wad intii aad kaloo xasuusato aad garanayso wata in saddex nin lama hasaabo tago wata nin ka qurux badan nin ka dheereeya wata iyo nin ka hadal badan wata Bobo anigii in telefishinka naga daawanaysaba waxa laga yaabaa in marka la yiraahdo de imika Bobo iyo hor fadhiyo nin Hollandees oo af Soomaaligii ku hadlayo oo ku mahmaahaya de in la yaab ku noqoto yiraahdo ninkan ma isagu ma hadlayo bishimuu dhaqaajinaya qolo kala mikrofoonka ku hadlays kuwaas maxaad ka dhadhicin lahayd oo la yaab ay ku tahay arinta maxaad leedahay Soomaaligii waxa ku ran lahaa in wixii indho arkaan ku gooyaan waa tahay macnaa
waxaad aragtaan boobo hadlay mikrofoonka ciid gadaal ka hadli mayso bal yani wata rubyal kaba wala caday moogtahay hadda waan caday in saas tahay hadana wax aad weyn ma moogta hadda dadaasho ni dadaala waa gaara moogtahay wata in hadda dadaasho in afkala barato waa gaaraysa ugu dambeyntii Bob waxa aan kala sheekaystay sida uu arko dhaqanka Soomaalida iyo intii uu ka bartay Soomaaliya waxa uu ka ogaaday dadka Soomaaliyeed waxa Bob uu sheegay in dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad aad ugu wanaagsan isdhexgalka laakiin dhinaca kale waxa uu Bob wax laga xumaado ku tilmaamay in muddo ku dhow 20 sanadood dadka Soomaaliyeed iyagu soo qaban la yihiin dawladda dhexe oo ka hirgashay gudaha dalka Soomaaliya tan iyo markii meesha ay ka baxday dawladdii dhexe ee Soomaaliya isagoo ugu baaqay dadka Soomaaliyeedna in ay wax ka bedelaan hanaankooda 20kii sano ay ku jireen ee dawlad la'aantu ugu horeyso nima waxa uu sharaf inuu dirka joogto moogtahay marka in dagaal wiil kuma dhashay wiil ba ku dhinta moogtahay waasa marka waxaan rajeynayaa inay midowdo Soomaaliya moogtahay inay nabad ka dhacdo inkastoo 20 sano ku dhawaad dagaalka ka socota waxaan rajeynayaa inay nabad noqoto dabadoo waxay ugu yiraahdeen waan ku wadana moogtahay marka xagee lagu wadaya Soomaaliya waata mana ku suurto gelina tagto ilaa hadii ma suurto gelin laakiin marka nabad noqoto ma cabsi baad ka qabtaa wax isla amal lagu dilaa balaa buulkaaga la galmaana waata fule hooyada ka qablanto waa sax soma waata waqti xaadirka ah ma tagi kartid ma tagi ayagana waxaad ugu baaqaysan ay dagaalka iska joojiyaan ay midoobaan ay gacmo wada jir bay wax ku gooyaan ay wax isla qabsadaan kana joogsadaan wadamadan ay qurbaha u iimaanayaan iyo qaxootinimada ay ku jiraan maadaama haday dawlad helaan ay ka bixi doonaan saasaad ugu baaqaysaa tagtoo daay timaado ogow waata waxa uu la jeedaa wixii dhacay iska ilaa hadda wax taagan ka hadla waata waa fikrad fiican weliga meel ay Soomaali joogto oo kulan ah oo ama hoolana ka dhac meel kale ay ku shirayaan ma ka qayb gashay sida talooyinka noocan oo kala asiis waata Bob oo isagu ah nin u dhashay wadanka Netherland wareysiga aanu la yeelanay oo salka ku haya siyaabaha luqadda afka Soomaaliga oo u bartay iyo saameynta luqadan Soomaaliga ay ku yeelatay dadka ajaanibta ee dunida daafaheeda ku nool wareysigaasi oo dhameystiran waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadeena dambe Cabdiweli Ibrahim Garyare Universal TV magaalada Hague